bismillaahi araxmaani iraxiim halkani waa warbaahinta awdal state xarunteeda magaalada edmonton ee dalka canada waxaa caawa halkan aan ugu talagalnay dhegaystayaasheeda naga dhegaysanaya dunida dacaladeeda inaan halkan ugu soo gudbino waraysi aan ka qaadnay mid ka mid ah howlwadeennada khaatume state oo ku nool waqooyiga america mudane marka hore may maqlaysaa aad iyo aad baan ku maqlay aad iyo aad ugu horreyn kusoo dhawow warbaahinta awdal state waa dhawahay waana idin salaamayaa bahda saxaafadana waa salaamayaa awdal state radiona waa salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu mudane waxaad ka mid tahay howlwadeennada khaatume state of somalia sida aan la soconno waxaa jirtay in 1991kii maamulka hargeysa ay ku dhawaaqeen inay ka go-een soomaaliya inteeda kale arrintaasi waxay ku noqotay shacabka ku nool waqooyiga arrin fajicisa reer khaatumo sidee u arkaan arrintaasi bismillaahi raxmaan iraxiim arrintaasi way jirtay oo waynu la soconnaa inagoo dhan reer waqooyi waynu nahay laakiin haddaan mid soo qaato etoobiya jabhad baa ka kacday tigreya jabhaddaasi way ku dagaalantay way horeysay dalkii iyo dadkii oo aan qof shakhsi laga qaadan oo aan wax la doobay jirin oo wax la gubay eegi jirin oo aan dhibaato jirin haddana ay ku maamulaan si nabadgelyo ah marka ninku markuu wadani yahay ee maamul uu diidan yahay waa af la yaqaan laakiin nin diidan muslimnimada nin diidan soomaalinimada nin diidan waxgaradnimada waxa weeye meel loo raaca ma laha sababtoo ah nimankani jabhad bay ahaayeen maamul ba ay ka hor yimaadeen jabhado kalaa ee ka feer ka soo baxday bay ahayd SDF oo ka abuurantoo laga abuuray hadafkooduna waxay ahayd inay ku wada socdaan inay maaragtay dowladda ridaan dabadeedna ay maamul noqdaan laakiin hadafka SM ma ahayn sidaa inay soomaaliya ka go-aan dabadeedna ay kala biibaadaan bay ahayd sidai haddaba sameeyeen marka isma qabanayso wax dhici karana ma aha sababtaa deegaanka waqooyi ingiriisku xukuma waynu garanaynaa inta qabiila degi jirtay haddaynu kasoo qaadano ururkeeni USP warsangeli dhulbahante gudabiirsi iyo weliba kuwo kaloo badan marka ma dhici karto mirihii ay dhashay waa goosanaynaana dee hadday kurataa SM taasaan kaga jawaabaya arrintaas suurtagal ma tahay in hal qabiil oo ku nool waqooyiga uu yidhaahdo waxaan rabaa inaan dadka kale ee ku nool waqooyiga aan anigu u taliyo waa wax lala yaabo weeye khaatumo waan la baxnay anagu taas jawaabteedu waxa weeye khaatumo maxay u dhalatay wey marka inaan su-aasha u bedelo khaatumo waxay u dhalatay oy u jirtaa oo u taagan tahay inaan maamul gaara waqooyigu uusan ka samaysmin inay dhismin SM hadafkeedu inuusan soconin inuusan meeshuu raba gaarin taasay u taagan tahay fikradda ay iyagu qabaanna way isku dayeen way ku dhinteen way ku dhaawacmeen way ku burbureen iyagii baana hadda cagaba ku taagneen oo ad arkaysaan dadka lagu qalnayo meesha dhibaatada haysata shacabkeeda waad maqlaysaa awdal state abaarta ka dhacday dhibaatada ka dhacday xoolihii oo dhammaaday mucaawimadii oo calaamadii ku qoran tahay UNCR ama WFP ay ku qoran tahay suuqa lagu iibinayo dabeedna akawna lagu shubanayo waa aragtaa marka anigu waxaanu u taagannahay inaanu horeyno dalkayaga dadkayaga iyo ummadda intii aanu isafgaranaynaba waxaa jirta in marka laga hadlayo manhajka waxbarashada ee looga dhigo iskuullada waqooyigu inay u badan yihiin niman ama ku dhintay dagaaladii SNM ku dhintay oo u yaqaanaan inay mujaahidiin yihiin waxaan ognahay in waxaan ku dhaha meelo badan oo ka mid a waqooyiga loo dhigo taariikhda SNM lagu dhigo iskuullada arrintaasi saameyn intee in leeg bay ku yeelatay shacabka reer khaatumo runtii shacabka reer khaatumo taa uu ka tashaday manhajkan aanu hadda wax ku dhiganaana waa manhajka waxbarashada federaalka soomaaliya aanu kasoo qaadanay waad ogeyd sanadihii lasoo dhaafay in hataa ardadu ay kasoo dhaqaaqeen maasacaanood ay buuhooda ku galeen degmooyin fara badan loo kala qaybiyey manhajka ay
annagu waa kasoo horjeednaa dowlad ahaan iyo shacab ahaan maamulka iyaguna wuu kasoo horjeedaa manhajka ay qaataanna waa mid cusub oo ah ku salaysan sida dowladda federaalka keedoo kaleeto marka kulley waxba ka socon maayaan habka ay wadaan sababtoo caddaasina waxa weeye iyagii baa waxay wadeen baa waxba ay ka soconeen gudoomiyaha maamulka SNM Axmed Maxamuud Silaanyo uu iclaamiyay dagaal ka dhan ah gaar ahaan Khartoum State arrintaasi maxaad noogu sheegi karaysaa runtii way jirtay wayna wada dhegeysanayna bay la tahay una oran jiro odaygu waa iska yara weynaaday riyada habeenka ku riyoodana subaxii uu kusoo kacaa sideedana hadafkiisa wuxuu yahay inuu ummadda iska horkeeno si uu maaragtay cimri dheer iyo dadkan mentally problemka qabe ee laga dhaadhiciyo wayna go-onayiyo uu wax ugu sheego una qariyo dibka iyo dhibaatada uu iyaga laftigooda ku hayo hadday dhul tahay hadday mataqaanaa shaqo la-aan tahay haddii ay dil tahay haddii ay xabsi tahay ummadda tani waana la xiraa oo waana la dilaa oo waana la cadaadiyaa way shalay u baxeen laakiin waxaan umalaynaya hadda mid ka daran inay gacanta ku haystaan bildaba inay gacanta ku haystaan wuu jiray ninkan inuu iclaamiyey inuu ciidamo iyo adduun soo diray intiina waad og tahay oo dhowr goobood baa la isku helay goobahaas alxamdulilah waxba noogama dhiman waanu ku guulaysanay waana wadaynaa insha allah inta hartay waanu xoraynaynaa biidnillahi tacaala dalkayaga waanu ku dhimanaynaa annagoo inta usii marin cidna amar uga qaadan cidna aanaan weydiin waa maasanta mudane waxaa jira rag badan oo kasoo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag oo ka tirsan maamulka Hargeysa oo isla mar ahaantaasina inta badan loo diro gobolka marka ay yimaadaan Khartoum State madaxdeedu ay timaado gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka Khartoum State Professor Cali Khaliif Galeyr marka uu yimaado Buuhoodle waxa loo diraa rag ka soo jeeda goboladaasi oo uu ka mid yahay Xagla Toosiye waxaana la wada joogaa Buuhoodle sidee arrintaasi isku waafaqdaa Buuhoodle oo uu joogo Cali Khaliif Galeyr oo madaxweynihii Khartoum State iyo wasiir ka mid ah wasiirada Soomaaliya maamulka Hargeysa oo ka soo jeeda isla gobolkaasi oo isla magaalo wada jooga say arrintaasi u suurta gashaa runtii waa su'aal aad u fiican oo aad iyo aad u wanaagsan Professor Cali Khaliif Galeyr waa madaxweynihii Khartoum Cabdiraxmaan Cagallule waa madaxweyne ku-xigeenka Khartoum State Maxamuud Sheekh Cumar waa ra'iisul baarlamaan marka intaa ka soo gudbo iyaga iyo dowladooda xukuma meesha wiil meel kale ka yimid iyo mid Ethiopia ka yimid xukumo haddii aan intaa kasii socdo waa run Xagla Toosiye u yimaadaa Buuhoodle wuuna joogaa laakiin sideeba ku joogaa way su-aasha taala ninku markuu waddanka soo galayo wuu dhashay wuu imaan karaa hadduusan dhibaato wadin waxa weye title uu ku joogaa maanta ma jirto wax wasiir la yidhaahdaana ma jiro walaa isbisiiri baan jirin waa nin shacaba ummadda ka mid ah madaxweynihiisa iyo maamulkiisa wula joogaa iyo odayaashiisa shacbiyahow hadday tahay shacbiyahow wax hub iyo hilib yaan lagaa dhigan hadba kooxa raadani sida bahalu hiigaan heensadaan dhammaystaan marka ay ka haagaan haamaha dalooshaan halkaa kaga dhaqaaqaan abaalkaa hilmaamaan bal hadda yaa hal idage alla ha dago mar labaad heerana waa habacsanaanta iyo hoorinimaday maamaa horaa tidhi hadal lays yidhahdin madartaaran baa hadhay geesigaa halgamayow hammigaaga kor u qaad himilada ku naallo shalaydii horeetiyo haddeertaa aan joogniyo waxaan hiigsanaynaba hiyigaaga kula dood hurdadaada ku ilow go'aan huban ka soo saar dalkaagana isku halle halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa warbaahinta Awdal State xarunteeda magaalada Edmonton ee dalka Canada mudane waxaan ku sii dhawaanaynaa gabagabadii barnaamijkeena waxaan la soconnaa in xildhibaano ka soo jeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ka soo jeeda goboladaasi Khartoum State in loo soo diray deegaanka Khartoum State ay ka soo degeen Garowe isla mar ahaantaana ay la kulmeen dad ka soo jeeda deegaanadaasi waa maxay sababta xildhibaanadaasi ka soo degay Garowe ay u yimaadeen maxaan ku radaa dhulka Khartoum State runtii arrintaas waxay ku fiicnaan lahayd in la weydiiyo dowladda Khartoum laakiin oday ahaan anigu intaan ka ogahay waa run nimankaasi way ka soo degeen flightkaas saas ahaa
dabadeedna way soo gudbeen buucaba bay yimaadeen odayaasha dhaqankii kula kulmeen sideedana isimadu dee waa dhaqankii waa madax dhaqameedkii khaatumana waa maamulkii dabadeedna nimankaasi way soo gudbeen arrimo ka jiray meeshaas iyo dhul xoogaa dhibaata ka taagneyd howlahoodina waa loo joogay oo waa ummad badan baa joogtay way ka sii gudbeen xaggaas iyo buuhoodlay usii gudbeen wixii arrimo ah ee faahfaahina taas waxaan u malaynayaa inay xagga maamulka khaatumo u taalo dhowaan waxaa ka dhacay dagaalo xadka u dhexeeya maamulka Khartoum State iyo Puntland State shacabka ka soo jeeda Khartoum State waxay ku leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland imikana waxa jira dagaalo iyo colaado is soo taraya waa maxay sababta dhalisay maanta oo maxaan ku dhahaa ummadu ay ka sii dagaalka laga sii korayo oo la rabo ummaduhu inay midoobaan oo isku waa maxay sababta keentay maanta inay Khartoum iyo Puntland ay isku hor yimaadaan waa arrin horta wanaagsan runtii madaxweyne ku-xigeenka Puntland wuxuu ka soo jeedaa Khartoum State waa nin maanta ah laakiin ma quseeyo maamulka Khartoum iyo maamulku isuu u shaqeeya wax ka dhexeeya ma jiraan taasi waa taa Puntland waa jirtay xilli aanu wax isku darsanay dib baanu uga noqonay maamul baanu samaysanay SSC la yidhaahdo waa kasoo gudubnay SSC Khartoum ee dhashay cid kasta oo Somaliland joogta oo kuwa hadda ka hadlaysa ee nolol soo dira ah markay madaxdayadu timaado iyo kuwa Puntland jooga wadana ay iyagu leeyihiin bay u joogaane dan shacabka Khartoum ah oo ay u joogaan horta ma jirto qofka bini'aadanka aana dee wuu danaysan karaa howluu leeyahayna wuu qabsan karaa anigu waagaan waddanka soo baxayay dee ama waa soo shaqatay oo sacuudiga ahayd hadafkaygu inaan u shaqato marka ninku hadduu isagu meel aado ama dan uu leeyahay uu aado laguma leexin karo oo lama oran karo Khartoum kasoo jeedaa Khartoum waxa ah maamulka cali khaliif gareeg inta hoos joogta ee dooratay ee ayidsan ee raacsan weeye ciddii kale ee meel kale joogta ma matasho ummadda iyo shacabka reer Khartoum ma matalo hadduu mar qofkaasi uu joogo maamul kale ama meel kale haddii aan usoo noqdo su-aashaadii ahayd dagaalaa ka dhacay horta dagaal kama dhicin maalmaha kamid ah ayaa Puntland go-aan ku gaartay dhul ay leedahay Khartoum State inay dhisaan oo dhul baraarsi ay sameeyeen arrintaasna waa la diiday dabadeedna ciidama isu yimid dib baa loo kala tegey ilaa haddeedna arrintaa waa lagu jiraa waktigu waa soo dhoway hoos 24 saacadood kadib arrin baynu maqlaynaa in meesha ay ka noqoto Puntland iyo in tallaabo laga qaado arrimahaasi way jiraan dhul durugsi weeye dhul ballaarsi weeye daandaansi weeye kibir weeye ummad badan baa kibirtay meeshay ku dambeeyeenna waa la ogaa kifradday ka mid tahay nimankan in badan baa dhibaato ay u geysteen ummadda reer Khartoum dagaallo badan bay la galeen gaadno badan bay ku sameeyeen dil badan bay sameeyeen tii hore ayaan weli hibanaynaa oo aanaa ka seexan tanse maanta waxaanu adduunyada u sheegaynaa hadday dib uga noqonin inta maamulaysa iyo inta arrintan wada ayan dib uga noqonin waxaanu caddaynaynaa inaanu ku dagaalamayno dalkayaga inaanaan cidna weydiinayn inaanaan cidna kala tashanayn difaacayno sharaftayada muslimnimadayada dadnimadayada iyo awlaadayada iyo dhulkayagaba mudane waxaa jirta Khartoum State waxa ay dagaal kula jirtaa sidii maamulka SNM ay dhulkooga uga saari lahaayeen dhinaca kale waxay dagaal kula jirtaa maamulka Puntland runtii waxa weeye anigu Puntland dagaal kulama jira iyada ay kula jirto horta Somaliland si dagaal baan kula jiraa waana kula jirayaa inta adduunyada ka hartayna waanu kula jiraynaa taas waa Somaliland Puntland iyada dagaal kula jirta heshiis iyaga iyo SM ka wada dhexeeya ayay ahayd waa labada reer isu haysta inay iyagu wadankii iyo dalkii burburiyeen laakiin iyagu ma burburin Maxamed Siyaad Barre waa dhiman lahaa
waagu markuu baryayo wuxuuna u haystaa inuu waaga isagu keeno laakiin diiqu waaga ma keene waagu waa bari lahaay isaga u haysta inuu isagu waaga keeno marka waxa way nimankan iyaga u haysta inay adduunka nimankay burburiyey yihiin uguna xoog badan yihiin laakiin waa maya labadaba waanu ka difaacanaynaa xoolaha waxa loo ootaa inaan luwaaga iyo libaaxa ugu soo dhicin waana ka dagaalamaynaa waana ilaalinaynaa sharaftayada puntland iyadaana soo doonata nabad baanu jecelahay nabad baanu ku baaqaynaa waxaanu ku baaqaynaa darisnimo haddii aanu weyno waanu iska difaacaynaa inkasta oo dalkayga taaka kamid ah ama joogta ama ku soo socota intaa waxay noogu dhammaaday waraysigii gaarka ahaa in la yeelnay howlwadeen ka mid ah Khartoum State of Somalia intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa aniga waa Cumar Ismaaciil Maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo amaana Allah